kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. warka waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdisalaan Herariya. qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah in ka badan 7 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qaar kale oo badanina ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ururka midowga Afrika ayaa sheegay inay wafdi xaqiiqo raadis u dirayaan soodinta u dhaxaysa wadamada Djibouti iyo Eritrea oo waqtigan xaadirka xasarada ay ka ogan yihiin. dhinaca kalena dawladda waddanka Eritrea ayaa ku eedeysay Mareykanka inay iyagu ka dambeeyaan xiisadaha weli sii socda ee ka aloosan waddankooda iyo waddanka Ethiopia. magaalada London waxa lagu qabtay xus loo sameeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii argagixisada ahaa ee gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada London. qodobada kale ee wararka caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah si baad uga dabaalataa oo aad isaga furfurtaa haddii bilays uu ku qabto, laakiin marka uu ku qabto bilays mashiine sidee la isaga furdaamiyaa, halkuu ka shaqeynayaa, sidee u shaqeynayaa bilayskaasi mashiinada ahi waa inoo goordhow. salaasadii maanta ahayd ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. weerarkan ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen in ka badan 7 qof, qaar intaasi ka badan in ay ku dhaawacmeen. wariyahayaga Sakariye Maxamuud ayaa warbixinta noo soo diray. qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa duurnimadii maanta waxa lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. xilliga weerarka uu dhacay waxay ka mid ahayd xilliyada ugu mashquulka badan degmada, waxaana laamaha amniga ay xaqiijiyeen inay ku geeroodeen ku dhawaad 11 qof, halka dhaawac uu ka badnaa tiradaasi. dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho Cumar Xasan. afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu geystay qaraxa. waxa waaye 12 ruux oo shacab dhimatay, 9 ruuxna shacab way dhaawacantay. hadda intee saraakiisha iyo ogeysiisay insha Allah taala wixii ka soo cusboonaadana gadaala ka soo sheegi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo. afayeene waxaan ugu maqaalaa dadkii halkaan ku dhaawacmeen oo ku jiray gudoomiyaha degmada Wadajir arintaasi dhaawac weyn ma gaarin. wariye ninka la gudoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin. qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo. gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego media ka sheegno ma gaarin. insha Allah taala asagana soo sheegi doono media soo hortaagi doono Ilaahay raali ka noqdo. ciidamada xasilinta ayaa wada baaritaano lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada, waana qaraxii labaad ee ka dhaca toddobaad gudihiisa magaalada Muqdisho oo ay sheegtaan mas'uuliyiinta Al-Shabaab. Zakariye Maxamuud Timcada, Universal TV, Muqdisho. ururka midowga Afrika ayaa sheegay inay wafdi xaqiiqo raadis u dirayaan soodinta u dhaxaysa wadamada Djibouti iyo Eritrea oo waqtigan xaadirka xasarada ay ka ogan yihiin. xiisadahan ugu dambeeyay ayaa waxay ka dhasheen markii ciidamadii nabad ilaalinta ee ka socday waddanka Qatar ay iskaga baxeen xuduudda u dhaxaysa labadaasi wadan oo sanadihii aynu ka soo gudubnay muran weyn uu ka taagnaa. ciidamada nabad ilaalinta ee ka socday waddanka Qatar ayaa halkaasi joogay laga soo bilaabo sanadkii 2010, waxaana qayb ka ahaayeen dadaal lagu doonayay in lagu xalliyo muranka dhulka buuraleyda ee jasiiradda Dumeira, kaasi oo labada wadanba ay sheegtaan. jasiiradda Dumeira ayaa waxay ku taallaa meel u dhaxaysa labada wadan oo koonfurta kaga taalla badda Cas, waxaana aad ugu dhowdahay marin biyoodka ama marin badeedka baabulmandab loo yaqaano oo muhiim u ah ganacsiga adduunyada. ciidamada labada wadan ayaa iskaga hor yimid soodinta sanadkii 2008. intii ka dambeysayna waxa dhexdhexaadinayay oo dhex joogay ciidamadaasi nabad ilaalinta ee ka socday waddanka Qatar. ka bixitaanka nabad ilaaliyayaasha waddanka Qatar ayaa u muuqday inuu xiriir la leeyahay khilaafka dalkaasi u dhaxeeya iyo wadamada kale khaliijka ay jaarka yihiin.
16 bishan ayaa Jabuuti waxa ay ku eedeysay Eritrea in askarteeda ay soo dhoobtay dhulka lagu muransan yahay kadib markii ay ka baxeen nabad ilaaliyayaashii ka socday wadanka Qatar tallaabadaasi oo Dooxa ay xaqiijisay 2 maalmood ka hor wasiirka amuraha dibadda wadanka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ku eedeeyay Eritrea in ay soo gashay dhulka lagu muransan yahay ee Soodinta waxaana uu sheegay in dalkiisu uu doonayo xal nabdoon laakiin diyaar ay u yihiin haddii dagaal uu ka fursan waayo labada wadan ee Jabuuti iyo Eritrea waxa ay la safteen xulafada Sacuudiga iyagoo ka hiiliyay wadanka Qatar jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa ugu baaqday Jabuuti iyo Eritrea in muranka u dhaxeeya ee Soodinta ay ku dhameeyaan si nabadgelyo golaha ammaanka jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa darsay warbixinta xiisadaha ka aloosan xadka labadaasi wadan waxaanay markaasi kadib ku baaqeen in xal nabadgelyo la gaadho iyadoo la raacayo bay yiraahdeen qawaaniinta caalamiga dhinaca kalena dawladda wadanka Eritrea ayaa Mareykanka ku eedeysay in iyagu dabada ka wadaan dhibaatooyinka wali sii socday iyo xiisadaha u dhaxeeya wadankooda iyo wadanka kale ay jaarka yihiin Ethiopia maqaal dheer oo arrintaasi ku saabsan oo uu qoray toddobaadkan wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalka Mareykanku ayaa madaxweynaha wadanka Eritrea waxa Mareykanka uu ku eedeeyay inay iyagu ka dambeeyaan xiisadaha wali sii socday u dhaxeeya wadankiisa iyo wadanka kale ee Ethiopia ay dariska yihiin labadaasi wadan oo muran dhinaca Soodintii uu dhaxeeyay 20kii sanadood ee aynu ka soo gudubnay madaxweynaha wadanka Eritrea Isaias Afwerki oo lagu tilmaamay wadankiisu yahay North Korea ama Koreada waqooyi ee qaaradda Afrika ku taala ayaa waxa wadankaasi uu hogaaminayay oo taladiisa uu hayay laga soo bilaabo sanadkii 1993 markii wadankaasi xorriyadiisa uu ka qaatay wadanka Ethiopia waraaq uu qoray madaxweynaha wadanka Eritrea wadamo ka tirsan jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo magacyadooda aan la sheegin ayaa waxa uu kaga dalbaday in laga noqdo oo la joojiyo go'aanka golaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay ku gaadheen sanadkii 2009 in cunaqabatayn dhinaca hubka lagu soo rogo dawladda wadanka Eritrea madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa waxa uu ku booriyay hogaamiyayaasha wadamadaasi uu waraaqaha u qoray in saameynta iyo galgalka ay ku leeyihiin golaha ammaanka ay u isticmaalaan sidii cunaqabataynta hubka looga qaadi lahaa wadankiisa iyadoo cunaqabatayntaasi lagu saaray dawladda wadanka Eritrea taageero la sheegay in ay u fidiyaan ururka al-shabaab ee dalka Soomaaliya dawladda wadanka Eritrea ayaa madax banaanideeda waxa ay qaadatay kadib markii dagaal 30 sanadood ay kula jirtay wadanka Ethiopia dagaalkaasi oo bilaabmay sanadkii 1961 socdayna ilaa 1990 markaasi oo wadanka Eritrea ay heleen madax banaanidooda sanadkii 1993 dagaalan waxba la isula hadhin ayaa labadaasi wadan ku dhex maray dhulka Soodinta sanadkii 1998 waxaana dagaalkaasi lagu qiyaasaa inay ku dhinteen dad gaarayay ilaa 70,000 oo qof intii dagaalkaasi uu dhamaaday sanadkii 2000 iyo muddadii ka dambeysayba ayaa haddana ay ka dhex taagnayd labadaasi wadan oo murankoodu aanu wali dhammaanin waxaana la sheegay in xaaladda ay ku sugan yihiin ay tahay mid aan dagaal lahayn nabadna ahayn wafdigan ay hogaaminaysay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye oo ay ku wehelinayeen wasiir ku-xigeenka wasaaraddeeda wasiirka dhalinyarada maamulka Hirshabeelle iyo agaasimayaal kale ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo
garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa wafdiga khadiijo maxamed diiriye hogaaminaysay kusoo dhaweeyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed haween ka kala socday xaafadaha iyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada baydhabo wasiirada iyo xubnaha la socday ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed kadibna waxa ay soo kormeertay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuba iyo xarun dhalinyarada qaar ee magaalada baydhabo xirfado kala duwan lagu barayo ujeedada halkan ay u soo gaartay wasiirada ayaa ku sheegtay mar ay saxaafada kula hadlaysay magaalada baydhabo inay tahay shir looga hadlayo siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo horey muqdisho loogu soo qabtay haddana wejigiisii saddexaad ka dhacayo magaalada baydhabo ka oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya wuxuu daba socdaa kulamo hore oo 2 jeer aan muqdisho ku yeelanay wasiirada dowlad goboleedyada dhalinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobaan ku heshiinay waxaan murtiyadan hore u soo saarnay waxaana diyaarinaynay hadda ugu horeeya siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada heer gabagaba ay noo maraysaa haddii Allah awoodda la ogolaado kulankan waxaan ku ballansanahay dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaas kii hadda labaad ay ka soo dhalatay kan marka waxa ku xiga hadana kulanka loo saddexaad dowlad goboleedka Puntland aan u sii socono sidaas dowlad goboleedyada kale galmudug Jubbaland Hirshabelle intaba aan soo mari doona gobolka Banaadir waa joognay waa sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada iyo isboortiga wasiirada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda waxaa ka go'an horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya haddii Allah awoodda la ogolaado qorshayaasha sanadna siyaasadahaas qaran loo dejinayo waxaan rajaynaynaa in dhalinyaradana ay nabadda ka shaqeyso waayo nabadday nolosha ku jirta haddii laga shaqeeyo horumarkana meeshaas ku jira horumarinta dhalinyarada marka qorshayaashaas cad وطن هذا عن مانت وجوبنا كميدا تن سبورتنا سدا سوكله أو ضيعتك جرامة أي مالي هذا عن سوكر من وعن وقوف وفرح سنة هاي وزير عبد الله وزير كوفر قلبه وحفر بدنا أو كقبتي مدة وحلك هاي هذا عندنا نقص أرجني عن لأنها الله أسياديو أنت كلا كم كنت هنا إلهي هسيو لكن وحول بفرح أنا بدأوا khadiijo maxamed diiriye muddada ay ku magacaaban tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waa markii ugu horeysay ay soo gaarto xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo waxaana shirkan wasiirada uga furmaya magaalada baydhabo laga soo saari doonaa go'aano ku saabsan wixii shirka lagaga hadlay muxudiin xusni TV-ga caalamiga Universal magaalada baydhabo tartan quraanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Ceerigaabo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag tartankan ayaa waxa lagu maamuusayaa bisha barakeysan ee Ramadaanta wariyahayaga Ceerigaabo Yuusuf Cabdi Xasan Cadde ayaa warbixinta noo soo diray tartankii quraanka kariimka bisha Ramadaan uga socday madrasadaha magaalada Ceerigaabo ayaa lagu soo gabagabeeyay mas'uul qaadiriga Ceerigaabo tartankan quraanka kariimka bisha Ramadaan oo ay maalgelinaysay jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Ceerigaabo ayaa waxa jaayisada iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka quraanka kariimka waxaana munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen maayirka degmada Ceerigaabo qaar ka mid ah shalaamaha dawladda iyo waalidiinta ardaydan ugu horeyn baa ka hadlay gudoomiyaha tartanka quraanka kariimka Saciid Cabdi Xuseen iyo gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Ceerigaabo Cali Soore madaaris lagu tabcay ilaa 19 madrasadooda ayaa isu yimid waxaan ku dadaalay hadaan lajnadii ardayda kala saaraysay in ay si cadaalad ah ay ku kala baxaan ardayda 25 kamida 9 dhowr bay ahaayeen jawaays la siinaya waxa jira oo iyana jawaayiso helaya cid allaale iyo cidii raganimadeedu ay keentay inay kursiga ku soo fadhiisato intii aan u mahad celinayaa lajnadii runtii waqtiga dheer ku hawlanayd oo mararka qaar kood ay ku kaliftay ilaa gelin hore iyo gelin dambeba ay wadaan imtixaanka
ardaydoo badatay darteed alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaa hufan ee wanaagsan ay runtii u soo diyaariyeen u soo habeeyeen jaamacadduna runtii ay kala warhaysay oo kula socotay waxaynu ku dadaalaynaa in aynu rabadaan walba tartanka wadno ujeeddada keliya laga leeyahay ee tartankana waxay tahay in aynu tayada qur-aanka kor u qaadno waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta iyo mas-uuliyiinta laamaha dowladda gobolka Sanaag. waxaan runtii ku dhiirinaynaa dhalinta da'yarta ah tartanka ku xiga waxaanu qabanaynaa bisha koowaad oo ku beegan Rabiicu Thaani ayaynu tartan qabanaynaa waxaan leenahay insha Allah taala kuwii ku guuleystayna guushaas aad u adkaysan lahaydeen oo aan laydinka yaan wax weey faramaroojiyeen kumintida kuwa doorkan aan jawaa'ista qaadanna sida aydin ragga wax uga soo dhacsan lahaydeen insha Allah taala falowgeeda qabta waynu dareemaynaa tacabka ka soo galay macallimiinta soddonka xifdisiiyey waalidka ku soo tabcay ee garab taagnaa intuba mahad bay leeyihiin haddaba nimcadaas waalidka ilaahay maanta u gaadhsiiyey inuu soddonkii qur-aanka ilmahaas yare xifdiyo waxaa looga baahan yahay inaan nimcadaasi ka suulinay inuu garabka sii hayo waxa keliya oo anigu waalidka aan leeyahay waxaa loo baahan yahay insha Allah taala in aynu ciyaalkeena u dadaalno arrintaasina waa mid inaga anfacaysa adduunkana way nagu anfacaysaa aakhirana way nagu anfacaysaa waxaan alawal u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaamacadda Geeska Afrika fariceeda Ergaabo oo isagu fikirkan iyo ficilkan iskale maanta aynu halka isugu nimi kama adahan ardada insha Allah taala wixii runtii kaalmo fiican soo gala waxaan siin doonaa waxbarashaan siin doonaa insha Allah taala bilaasha gabadhiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur arrinta tartanka haddaynan halkan ku qaban xaflado badan oo inaan inagu tartanin oo uu yimaado tartankii qaranka oo dalka oo dhan dee suuroobi maayo inaynu meel hore ka galno markaynu halka ku jilcino oo tartankii inagu samayno ayay gelaysaa inaynu gallo kaalmaha hore ee dalka waxaan ballan qaadayaa anigu intaan noolahay inaan wixii aan ka geysan karo ka geysto yuusuf cabdi xasan cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa qodobada kale ee wararka caalamkaanu idinku haynana waxaa ka mid ah wareegta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa lagu magacaabay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana loo magacaabay Saki Cabdi Xaraare iyadoona wareegtada uu madaxweyne Cosoble uu soo saaray uu akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Mustafa Xuseen Cabdulle maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka bisha 6aad 2017 wareegto madaxweyne ujeedo magacaabida wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa 5aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana garwaaqsaday laga maarmaynimada in la tayeeyo wasaaradaha qaar maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka Juun 2017 waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Saki Cabdi Xaraare wareegtadan waxay dhaqan galaysaa marka madaxweynuhu uu saxiixo uuna saxiixay wareegtadani ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweyne Cosoble oo wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamuud Cabdulle uu xilka hore uga qaaday Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV dowladda waddanka Britain ayaa ku dhawaaqday gargaar ka badan 113 milyan oo dollar oo la siinayo wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia dowladda waddanka Britain ayaa waxa ay sheegtay in gargaarkaasi looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha ku dhuftay Geeska Afrika dalka Soomaaliya ayaa dowladda Britain waxa ay sheegtay in lacagtaasi ay ka heli doonaan ilaa 60 milyan oo gini halka 30 milyan ee soo haray ee giniga Ingiriiska ay heli doonaan dowladda waddanka Ethiopia gargaarkan ayaa waxa ku dhawaaqday xoghayaha horumarinta caalamiga ee waddanka Britain Priti Patel oo iyadu maalintii shalay ahayd ee Isniintii booqatay dalka Soomaaliya kadib markii booqasho ay hore ugu tagtay waddanka Ethiopia gargaarkan dowladda Britain ay ku dhawaaqday ayaa waxa la doonayaa in lagu gaadho oo lagu gargaaro in ka badan 2 milyan oo qof oo xaalad aad iyo aad u baahi badan ku sugan waxaana la sheegay in dadkaasi loo siin doono cunto iyo biyo nadiif ah iyo sahayda gargaarka caafimaadka ee degdegta amaba asaasiga
ku dhowaad 16 milyan oo qof oo ku sugan geeska Afrika ayaa u baahan gargaar degdega iyadoo sababtuna ay tahay abaaraha ba'an ee ku dhuftay gobolka geeska Afrika. magaalada Melbourne ee waddanka Australia waxaa lagu aasay nin dhalinyaro ah oo Allah u naxariistay 27 jir ah ninkaasi oo la sheegay in 4 nin ay isugu tageen oo ay dileen. aaska ninkan oo jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne ay si weyn uga soo qayb galeen ayaa waxa goobjoog ka ahaa wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo oo deedna warbixinta noo soo diray. اللهم صل على سيدنا محمد. waa maalin ay tiiraanyo ku reebtay ehelada Cabdullaahi Bashiir oo maanta loo gelbiyey hoygiisii dhabta ahaa kaas oo qof walba sugaya. boqolaal ka mid ah jaaliyadda Soomaalida magaalada Melbourne ayaa soo sagootiyey marxuumkan dhalinyarada ah ee dhowaan lagu dilay magaalada Melbourne. Cabdullaahi isagoo 6 jir ah ayaa la keenay Australia. 7 jir ilaa 6 jir buu ahaa. marka wuxuu iskuul ka bilaabay halkan primary ilaa iyo secondary ku dhameeyay. kadibna jaamacadiisa ayuu sii aaday Latrobe University. jaamacadda uu dhameeyay 2015kii. wuxuu bartay accountancy, business management and economics double degree buu ahaa. kadib wuxuu shaqo ka helay immigrationka oo waladana hoos yimaadaan Seeko Reerado. muddo wuxuu ka shaqeynayay Melbourne. kadibna wuxuu u wareegay Christmas Island. kuwani waa asxaabtii ay ka wada shaqeynayeen hay'ad hoos timaada waaxda socdaalka ee u qaabilsan jasiiradaha ay ku jiraan dadka magangelidoonkahi. On behalf of Serco, all the employees and all the people who work with him, we can say we hope and pray to God for his soul to rest in peace. Dr. Xuseen Xariko ah gudoomiyaha jaaliyadda Australia ayaa ii sheegay inay booliiska ay ka warsugayaan baaritaanada ay wadaan. Cabdullaahi waa nin dhalinyaro ah Ilaahay u naxariisto reerkiisana waxaan ka rajaynayaa samir imaan Ilaahay ka siiyo runtii nin dhalinyaro shaqeysanayo ahaa ayaan daro gacan kala dishay sida naloo sheegay. haddana ay booliiskii ay wadaan baaritaankii booliiska waan la xiriirnay hawsha si fiican u socotaa. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dambeeyay la soo qabto oo sharciga la keeno oo lana waafajiyo wixii sharciga uu qabo. taasaan rajaynaynaa. aad waxaan u rajaynayaa in arxan laawayaashii Cabdullaahi dilay in cadaaladda la hor keeno sida ugu dhaqsaha badanna loo keeno. saasaan aad u rajaynayaa. maxaa wiil oo salaadiis maxaa uu tukaduha. wiilashan ayaa ah kuwo ay waxbarashada ku wada dhameysteen Melbourne iyo kuwo halkan ay ka wada shaqeeyeen. wuxuu ahaa wiil fiican u ahaa iskuulkaas ku dhameena ilaahay wasan u xareeso waxa meeshan u imaana ina aw tacsanana maxaa wasaaradka iyo asaga. Cabdullaahi Bashiir wuxuu ahaa nin aad iyo aad xalaq wanaagsan oo degan oo aad iyo aad community-ga uga dhex muuqdo ahaa. muddo aan wada shaqayn jiray oo aad u soo shaqaynay oo aad dadka aamusan anin aamusan buu ahaa. aniga magacayga waxaa la Yaasiin Maxamed Faarax odayaasha jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne degan ayaan ka mid ahay. waxaan anu ka garanayaa wiilkayga ayay iskoolaas ahaan jireen. habeenkii xafladda qalinjibinta oo sanadka dugsiga sare la dhamaado ayaan iskala qayb galnay oo isku aragnay. mararka bacdina 2 goor oo kale waa is aragnay. nin wanaagsan oo maaragtay faraxsan oo ahaantii maaragtay aad u qiimo badan ayuu ahaa. dhalinyaradan ay jeclaayeen kulli ay isku faacayeen. walaalayaal innaga marka waatan ilaahay baynu erge u nahay. waxaynu ilaahay erge ugu nahay walaalkeen wixii xumaan ahaa inuu ilaahay ka dhaafay allah ka dhaafo. wixii wanaag ahaa uu sameeyeyna inuu ilaahay u ziyaadiyo allah u ziyaadiyo. ergada allah inaga aqbalo. ruux intuu ergeeyey ergada laga diiday waa foolxume. ergada allah inaga aqbalo. allah u naxariistay Cabdullaahi Bashiir waxa uu ahaa wiil 27 jir ah weli ma guursan caruurna ma uusan lahayn. waxaana lagu fara saaray xaafadan aynu ku sugannahay ee la yiraahdo Fogno ah halka ay ku yaalaan qabuuraha maanta dhinaciisa dhulka loo dhigay. waxaana la ii sheegay in ay jirdileen 4 nin
aan heybtooda la garanaynin inkastoo booliiska weli ay daba joogaan cidda wiilkan Soomaaliga ah ee dishay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia. bilayska magaalada Dubai ee waddanka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa wixii imika laga bilaabo waxa ka barbar shaqaynaya bilays aan bini'aadam ahayn. bilayskaasi waa mishiino. bilayskan ayaa waxa la sheegay in wax badan ku soo kordhinaya sida ay u shaqeeyaan bilayska Imaaradda Dubai. bilayskan mishiinada ayaa waxa la sheegay inuu garan karayo wajiyada dadka dambiilayaasha ee markaasi bilaysku ay raadinayaan amaba ay ku raad joogaan. waxaana la sheegay arrintan oo imika mid tijaabo ah haddii lagu guulaysto in markaasi ay noqonayso ay horseedayso in 25% ka mid ah bilayska Dubai sanadku marka uu noqdo 2030 ay noqonayaan mishiinadaasi aan bini'aadamka ahayn. mishiinadan ayaa computer waxa ay ku sitaan laabta waxaana ay dherarka iyo muuqaalka leeyihiin bini'aadamka. waa lala hadli karayaa iyaguna dadka way la hadlayaan. mishiinadan ayaa waxa la sheegay inay kaga wanaagsanaanayaan bilayskii bini'aadamka ahaa. horta waa mare fasax ma qaadanayaan oo ma xanuunsanayaan oo fasaxa waalidiintu ay qaataan marka carruurtu ay u dhalanayaan. dabcan iyagu uma baahna 24 saacadood ee 7 maalmoodbana way soo xaadirayaan baa la yidhi waa diyaar. sidaasi waxa sheegay taliyaha bilayska ee Imaaradda Dubai Brigadier Khalid Nasir Al-Rasuqi. waxaana uu sheegay in dadka qaarkood ay door bidayaan ama ay xiisaynayaanba in markaasi ay u waramaan oo wixii dambiya ay u sheegaan bilayskaasi aan iyagu bini'aadamka ahayn mishiinada. bilayskan mishiinada ah waa arrin la yaab leh ayaa dadka gacan qaadi karaya oo dabadeedna xitaa salaanta ciidamadu ay bixiyaan ayay isugu taagayaan dadka. arrintan ayaa waxay noqotay mid aad iyo aad u soo jiidatay dadka ku nool magaalada Dubai. waxaana la sheegay in bilayskan mishiinada ahi waxyaabaha kale ay samayn karayaan ay ka mid tahay iyaga oo markaasi akhriyi karaya nambarada gawaadhida oo markaasna isbarbardhig ku samayn karaya gawaadhida la raadinaya bilayska liiskooda ku jira iyo kuwa markaasi ay arkaan. dadkuna marka ay uga waramayaan wixii dambiye dhaca waxay samaynayaan computer laptop ugu xidhan baa loo gelin karaya wixii macluumaada ee markaasi ku saabsan dambi dhacay oo bilayskaasi mishiinada looga waramayo. waxa kale iyaga qudhoodu ay ka warami karayaan baa la yidhi bilayska bini'aadamka ay dabcan u sheegayaan haddii ay arkaan wax shandada ah oo meelaha lagaga tegay si markaasi looga feejignaado in waxyaabaha qarxa aan meelaha la dhigin iyadoo Dubai ay tahay magaalo dalxiiska iyo ganacsigaba imika caalamka si aad u weyn caan uga. waxaan u malaynayaa sida arrimo imika ay ku socdaan meelo fara badan oo caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka in dhawaan ay meesha ka bixi doonaan malaayiin shaqooyina oo ay bini'aadamku qaban jireen oo wixii imika ka dambeeya shaqooyin aad iyo aad u fara badan loo isticmaali doono mishiinadaasi. bal haddaba waxa la yaab leh haddii uu ku qabto askari bini'aadami waxa laga yaabaa inaad si uun isaga furdaamiso laakiin marka mishiin ku qabtay kuugu darantay. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo ay idinkala socoteen telefishanka Universal Studio-hiisa magaalada Hargeysa. anigoo Cabdisalaan Hereeriya ayaa idin waramayay intaynu dib u kulmayno anigii asxaabtaydu waxaanu idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo.